waxaan isugu nimid in aanu ka hadalno halkan iyadoo ra'iisul wasaaraha annaguna maanta wada tashi aanu lahayn aniga gudoomiyaha aqalka sare gudoomiyaha maxkamadduna nagu weerarnayay iyo wasiirada halkan fadhiya iyo gudida dardargelinta hawlihii doorashooyinka Somaliland waa tii bari dhaweyd waxoogaa jireen waa ka heshiinay hawshaasi waa noo dhamaatay xaflad baanu ka samaysanay iscanfiin ah oo hore looga soconayo ra'iisul wasaaruhuna goobjoog ka ahaa waxaanu galabta isugu nimid inaanu ku kala war qaadano hawshaas dhaqaajinteeda iyo dardargelinteedii waxaa noo qorshaysan aqalka sare oo aanu sida ugu dhaqsaha badan u gudagali doono annagoo mid ah oo midaysan guddiga doorashooyinka Somalilandna sidii habraacu ahaa ay noo soo qori doonto bari laga bilaabo inaanu muddadii loo baahnaa ku soo gudbino liiska murashaxiinta aqalka sare aniga iyo gudoomiye Cabdi Xaashi markaanu ururino dadka danaynaya sida ugu dhaqsaha badan waxaanu soo gudbin doonaa liiska musharaxiinta aqalka sare waxaanu ku tala jirnaa insha Allah toddobaadka soo socda ee sabtida ka bilaabma in la gudagalo doorashadii senatarada ama xubnaha aqalka sare ee 12 ah ee ku medelaya aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya in la doorto toddobaadkaas haddii Ilaahay yiraahdo gudihiisa waa mahadsantihiin ra'iisul wasaare waa kaaga mahad celinaya fursadda aad siisay iyo dadaalka iyo isgarab istaaga had iyo jeer runaantii aad nala garab taagan tahay intaasaan ku soo koobaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh